Bismillahi Raxmaani Raxiim. Waxaan bartan uga jirnaa maadadii xisaabta dugsiga dhexe fasalka toddobaad. Ciwaankuna waa boqolley. Casharkiisa afaraad ayay maanta noo joogtaa. Waayahay tusaalaha shanaad. Tusaalaha shanaad muxuuna leeyahay farxiyo ayaa waxa ay soo gadatay mooto bajaaj qiimaheedu yahay 4,800 oo doolar. Kadib way iska sii iibisay waxa ayna ka heshay 10% amba 10% faa'iido ah. Xisaabi qiimaha ay ku sii iibisay. Yacni mootay soo gadatay waxay kala soo baxday 4,800 way sii iibisay. Waa ka faa'iida lacag ka faa'iida. Lacagtii ka faa'iida boqolley ahaan markii loo sheego waa 10%. Boqol kasta yacni $10 camal ay ka faa'iiday u dhigantaa. Haddaba qiimaha ay ku sii gaday farxiyo meeqa ayay ku sii gaday mootadaas. Solution aan leenahay amba furfur. boqolley faa'iido waxaa lagu helaa faa'iidada loo qaybiyo qiimaha soo gadashada lagu dhifto 100% waa qaacidada guud. boqolley faa'iido waa liisiye boqolley faa'iido waa kana boqolley intay 100% ka faa'iido waa 10%. qiimaha soo gadashada oo mootada markii laga soo baxshay waa la sheegay waa 4,800. 100% waa number. Waxaan soo raadinaynaa faa'iidada. Waa maxay faa'iidada soo raadinaynaa marka 10% meeqay u dhigantaa lacagtay u dhigantaan soo raadinaynaa. Hadda waxaan waa percentage lacag ma ahan. Marka lacagtay u dhigantaan soo raadinaynaa. boqolley faa'iido waxaan ku bedelanaynaa 10% isagoo faa'iido waa soo raadinaynaa. Lacagta lagu soo gado 4,800 lagu dhiftay 100%. halka marka joogto isdhaaf aan isugu dhifanaynaa 10% waxay ku dhacaysaa 4,800. faa'iido iyo 100% waa isku dhacayaan. Cross multiplication la yiraahdaa. Marka faa'iido lagu dhifto 100% waxay la mid tahay crosskan hoos ku dhifo waa 10% oo lagu dhiftay 4,800. meel walba waxaa u qaybinayaa 100%. inta 100% u qayb isla baxayaan intana 100% u qaybi. Marka inta waa isla baxeen maxaa soo hara faa'iido bita soo haray. faa'iido waxay la mid tahay marka 10% lagu dhifto 4,800 oo loo qaybiyay 100%. waa boqolka intuu qaybinaya intana u qaybinaya. halka marka la joogo fiiri marka calaamadan 100 iyo calaamadan 100 isla baxaan ya maxaa isla baxayaan dhahnay calaamadan 100 calaamadan 100 iyo calaamadan 100 isla baxaan. halkan ibir iyo ibirtan isla baxaan. ibirtan kale iyo ibirtan kalena isla baxaan. maxaa soo haraa marka inta 48 ay soo harayso intana 10 soo harayso hoosoo dhan maxaa ka soo haraa hala soo haraa hal hoosee lama qoro. marka waxaan leeyahay 10 lagu dhifto 48 10 lagu dhifto 48 waxaa soo baxaysa 4,800 480 yaa waa marka waa faa'iido. faa'iido maxay la mid tahay amba lacagta la faa'iido maxay la mid tahay 4,800 ay la mid tahay. waa kaasa faa'iido waxaa la helay 4,800 marka 10% boqolkiiba 10kan ay faa'iiday lacagta ay u dhiganto amba lacag ahaan hadii loo bedelo waxaa waa $480 mootadaas ka faa'iiday farxiyo. meeqay ku gaddo marka waxay ku gaddo soo saari karaa haddaan la fihi lacagta ka gasha aqaano oo inta ay ka faa'iida aqaano lacagta ka bixisa sheegi karaa. lafaha iyo faa'iidada marka la isku daro lacagta waxa lagu sii gaday soo saarayaan. waxaan leenahay marka qiimaha sii gadid waxay la mid tahay qiimaha soo gadashada oo lafaha loo yaqaano lagu diray faa'iidada oo ah inta laga faa'iiday. qiimaha sii gadid waxay la mid tahay marka soo gadashada waa 4,800 lagu diray faa'iidada oo 480. marka la isku daro waxay isku noqonaysaa waa $5,280. waxay lacagta lagu sii gaday mootadaas waxaa waa marka qiimaha sii gadida waa $5,280. mootadas waxaa laga bixiyay $5,280. markii hore maxay ku fadhiday $480. labadan hadii la kala jaro faa'iidada soo bixaysa waa $480. kala jar macneer maxaa waa soomaalidu waxay tirahdaa horta lafaha ii reeb faa'iida maxay soo haraa. marka lacagta shayga laga sii bixiyay lafaha markii laga jaro inta soo haraysa faa'iida la yiraa. tusaalaha lixaad waxaa la yidhi jaamac ayaa waxa uu soo gatay saacad qiimaheedu yahay $45. kadib wuu iska sii iibiyey waxa ayna keentay 10% oo khasaare ah 10% oo khasaare ah ayay keentay. shay walba haddii la soo gado lasii gedi tago faa'iido leh lagama keeno maraa la khasaara soo ma waa khasaaray jaamac marka 10% oo khasaaray. haddaba xisaabi qiimaha uu ku sii iibiyey saacadda qiimaha saacadda uu ku sii iibiyey
meeqa waaye mid ogow markii wax shay laga faa'iido shaygan intuu ku fadhiyey ka badanaa laga bixiyey markii shay lagu khasaaro shaygan intuu ku fadhiyey ka hoosaa laga bixiyey marka khasaaradu waa in lafii meesha kaa galay wax ka hooseeya aad ku gadid wax khasaare markaas markii aad lafaha meesha kaa galay wax ka badan aad ka bixisidna waa faa'iide markii lafii meeshii kaa galay naftirkooda aad kusii iibisidna waxaa la yidhaha no loss no gain ayaa la yidhaha no loss no gain faa'iidana ma jirto khasaarana ma jirto waa dibi dibi ka bixi waxay soomaali jiraa khasaaris u dhowdaa lag furfurdhe marka qaacida soo qaado boqolii khasaar waxay lamid tahay khasaaraha loo qeybiyey qiimaha soo gadashada lagu dhifta boqolkiiba boqol boqolkiiba boqol waa yahay xisaabta aaday u fiican tahay in la barto waa muhiim boqolii khasaar mug maxaa liisii waa 10 boqolkiiba khasaaraha waa inaan soo helaa 10 boqolkiiba intay u dhiganta khasaare ayaan u qaadana loo qeybiyey qiimaha soo gadashada waa 45 doolar saacadda lagu dhifta boqolkiiba boqol equal dheh karoosan isugu dhifta labadan waa isku dhifanaa labadan waa isku dhifanaa khasaaro lagu dhifta boqolkiiba boqol waxay lamid tahay 10% oo lagu dhifta 45 doolar halkan marka la joogo khasaare kaliya inaan soo reebaan rabaa inta boqol u qaybi intana boqol u qaybi boqolkan isla baxaano aantu u qaybiya khasaare ay soo haraa khasaare muxuu lamid muga 10 boqolkiiba oo lagu dhiftay 45 doolar loo qaybiya boqolkiiba boqol halkan marka la joogo maxaa sameynaa marka halkan marka la joogo waxaan sameynaynaa waxaan isla bixinaynaa boqolkiiba boqol iyo boqolkiiba boqol isla baxaano soo ma waxaa kaloon samaynaynaa hal eber iyo hal eber isla baxaano soo ma maxaa soo haraa marka inta hala igu yaal wanan ka isdha inta maxaan ka isdha 45 doolar hoosna maxaa yeel 10 iyeel waxaa soo baxay marka 45 doolar loo qeybiyo 10 hal haddii 45 lagu dhifta soo kordhima 45 doolar loo hoos dhigay 10 45 markii 10 loo qaybshano boontiga hal xaba intuu wareega bis 4.5 doolar ay naqanay 4 doolar bar ayay naqanaysaa khasaaro waa muga 4 doolar bar khasaaraha oo khasaari waa 4 doolar iyo bar oo khasaari 4 doolar iyo bar ayuu khasaari mar haddaa khasaari aqaano marka lafiina aqaano inta laga bixiyo sheegi karaa qiimaha sii gididda wuxuu la mid yahay markuu khasaaro jiro waa qiimaha soo gadashada waa lafii maano waxaan ka jara khasaaraha lafihi khasaaraha haddaan ka jaro inta ka bixay soo baxayso qiimaha sii gididda waxay la mid tahay qiimaha soo gadashada laga jara khasaaraha marka qiimaha sii gadashadu waxay la mid tahay 45 doolar oo lafi ah laga jaro waa meeshan lagu daro ma ahan waa laga jaray 4 doolar iyo bar maxaa soo baxaysa markaas 40 doolar iyo baraa soo baxaysa 40 doolar iyo bar ayaa soo baxaysa marka qiimaha saacadda lagu sii iibiyo waa 40 doolar iyo bar markii hore meeqa ku fadhiday 45 doolar meeqa la khasaaray 4 doolar iyo baraa la khasaaray qiimaha saacadda lagu sii iibiyo marka waa kaasa waa 40 doolar iyo bar qiimaha sii gadashada waa 40 doolar iyo bar aad ayay u mahadsan tahay haddaa intaan nala soo gaartay aan ka codsanaynaa channelka inaad subscribe noo dhahdid like noo saabtid wixii commenteena aad nagu reebtid talo iyo tusaale waxay hadaysid aad u mahadsantihiin wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu